ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان والسلام يا أرضيدا. وحنا السلام يا سلامة إسلامك كلجين. hope inaad ii fiican tihiin boys and girls. waxaan rabaa insha Allah waqti yar oo kooban in isla qaadano hadduu alla idmo. horta niman yahow ardayda wax bay qaarkood wax bay qashaan istaada wax bay qashaan badi waxaa arkaysaa waxyaabaha halka ii sarsaaran soo ma jeedaan waxyaabaha halka ii sarsaaran bay qashqashaan. maalin hore qof baa isoo weydiiyey wuxuu yidhi sunna.com ustaad wuu aaday maya wuu aaday marka wuxuu yidhi waa sida kitaabka oo kale waaye waa website laakiin sida kitaabka oo kale waaye maadaama annaga badi aynu shaashadii badi inuu kitaabkii hadduu qofku mar walba uusan mataqaanaaye shaashadihii kuu shidan oo kale haddii ay niyaddaa kusoo dhacdo inaad qur-aanka akhrisid oo kale inaad halkaa ka aado websitekan aad buu u fiican yahay. waxyaabahan ku jeclaa waxaa ka mid ah xadiisyadii qur-aankii waxyaabo dhammaan baa ku astaysan. okay marka waa ujeedaan xadiisyadii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. by the way guys, diintii in la barto dad badana waxay u moodaan waxyaabahaas oo ma ogid hadda anigu muqaaga aan cilmi kalaamka aan dhankaa iyo waxaan akhrin jiray xaqiiqdii waxaa ii soo baxdaa 99% dadka buugaagta qoraayo kulli inay yihiin ba nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dad aqoonta ka soo bartay. waxyaabaha ugu cajiibsan waxa waaye waqtiga sida loo manage gareynayo akhlaaqda positivity mindsetka attitude waxyaabaha kulli waxyaabaha laga soo xushay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. marka ka waran haddii aad nabigaaga sallallahu alayhi wasallam wadada uu kaaga tagay adiga inta ka cararta wadadii gaalka intaad aado ku daba orato kadibna aad kala soo kulanto waxyaabihii nabiga sallallahu alayhi wasallam hore kugu sheegay ceeb soo kuguma ah maxaaba kaa u daba ordaysaa. marka taas waa ma isku dheelitirnaan inaad la imaado oo adiga cilmigaaga diiniga ahaa inaad barato yaa adoo maalmo dhaweed may ahayd markay dhahayeen 360 joints ayuu jirka bini'aadamka leeyahay ayay scientists-ku soo ogaadeen. nabi maxamed gormuu sheegay 1400 sano ka hor buu sheegay intee qarni kusoo wareegay xadiis dhan baa kusoo arooray 360 joints waxaa lahaa galagoosyada bini'aadamku leeyahay sida galagooskan gacanta yarta ee ku taala faraha galagoosyo leeyihiin meel kastoo isku laabanta ayaa joints la dhahaa. cilmigaa fiiri nabiga sallallahu alayhi wasallam dhaxalsiyo inooga tagay waxaana waa xigmad dhanka alle subxaanahu wa tacaala inooga tagay marka inaynu ku shubno barano waaye si aynu u noqono dad aqoon leh. marka websitekan sunna.com baa lahaa haddaa aragtaan ODA waa ka helaysaa qur-aanka haddaa ku dhufto marka websitekan kale ayuu kusii geynayaa oo loo yaqaano quran.com waa aadi kadhaa quran.com-na waa ku qori kadhaa sunnah.com-na waa dhigi kadhaa waa kasii aadi kadhaa. marka wax kastoo aad akhrinayso maalmaha jimcaha oo kale suuradaha aad akhrinayso kulli halkan alkaaf oo kale waaqica oo kale daily recitation-ka kuwa maalinlaha joogtada loo akhriyo waa kuwan oo kale 1 2 3 4 5 shantaas waa maalinlaha. marka haddaa rabto anigu waan ku aftaxaa xaqiiqdiis wax kasta aroortii. so halkan waa setting-ki waxaa ka samaysan kadhaa dark mode ka dhigan kadhaa xataa mugdi dad baa iftiinka dhibaa dark mode ayaa ka dhigan kadhaa soo ma jeedaan dark mode mugdi ka dhiganaysaa. tusaale oo kale hadda ayatu kursiga ku dhufsanayaa ayatu kursiga rabaa inaan akhriyo translation-kan oo kale waa af English Soomaaliya ka dhiganaysaa. okay Soomaaliya ka dhiganaysaa haddaa aado translate hoos u soo diro okay waa markaas sii kala fasirayso halkan ku dhufanaysaa translation-ka waa bedelaysaa hadda English buu saaran yahay waa ka qaadaysaa soo diro daarta 10 gooni aan kaga soo diyaarinaya aad buu u muhiimsan yahay inaad tafsiirkii iyo quraankii kitaabkaagii oo caadi waay oromo xataa soo wajid af oromo Polish Portuguese Romanian Russian Somali ninkan anaa noo soo Maxamuud la dhaho
khayr Allah siiyo marka xogaa waxa jira maalmo dhaweedna aan ku arkay xogaa yar yar oo hadda eebe ilaahan isaga Soomaha da'da adigu waa Soomaali waa fahmaysa Soomaali iska qaban kartaa khaladaadka yaryarka eebe ilaahan isaga ahayn ma jiro waaye Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayy waan eebaha nool khalqigana maamula ma qabato lulmo iyo hurdo yacni daal iyo hurdo labadaba ma qabato atii hadda ibn al-qayyim tafsiirka aan ka akhriyo markuu aayadan fasirayo waxyaabo ku fiir waxa waaye nabi Muuse alayhi salaam soo qaadanaya uu leeyahay nabi Muuse ay qolada yuhuudda oo imaanayso waxay leeyihiin nabi Muuse ilaahaaga ma seexdaa bay leeyihiin ma ogtahay nabi Muuse ilaahay markaa wuxuu ku leeyahay ilaahow ma seexataa ilaahay wax kale uma jiro wuxuu leeyahay laba quraarad labada gacmood ku qabato bal habeenkii oo dhan inaad saxar isku dayso istaag nabi Muuse alayhi salaam waa nabi ilaahay wuxuu faray buu qaadanaya sidii buu yeelayaa markay habeenkii saqda dhexe mareysay oo indhihii daaleen oo lulmo qabatay oo uu daalo oo hurdada qabatay oo uu sii dhici rabay mataqana habeenkii fiidkiisa ugu dambeeyay uu sii dhici uu luloodo hurdo qabatay nabi Muuse dhulku ku dhacay markaas dhalooyinkii iyo wixii ka daba dhaceen markaas malaa'igta u timi markaas lagu yiri hadii ilaahay marka xigmadda ku jirto waa waxa la tusaa yacni haduu ilaahay hurdo adiga bini aadamka dhalooyinku waa ka dhaceen ama awood tabarti hurdadaas marka waxa la yiri todobada samo ayaa bini aadamku dhulkan ma jireen ba arlikan oo baabi'i lahaa yacni earth ayuu hadda ku nool sama universe todobada samo ayaa ku soo dhigay marka aad iyo aad ba xigmaddaas ugu jirta marka waxa qofkii rabaa inuu halkaas u imaanaya website-kan quran.com baa la daarabto adhoodana waxa saarataa favorite-kaaga iska saaro si meeshaad maalinta iga aragtan oo kale buu soo fuulaya halkaas marka ka aqrisanaysaa takalana macnaha quraanka inaad fahamto maanta annaga waxaan dhibaa maxay quraan qalbigan u dhaqaajineen somehow carabiga iska aqrinayna ma fahamsanin fahamka ayaa muhiim ah quraanka markaa fahamto waa ku dadburaysa yacni waa ku qiiroonaysa qiiradaasana qofku loo baahan yahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu yiri nasiinadina ka helina marka halkaas ayaan uga baxaya maanta mar rabo full topic inaan kan kaga hadlo kaliya hadda ayuu ii soo baxayo waxaan arkay anoo rabo inaan website kala aado marka kan waa jira website badan baa jira ardayda qaal loo baahan tihiin xaqiiqii inaad barataan website kan kala jira waan idin faa'iideynaya website kan kala jira aaway website-yadu badan yihiin kuwana aaway Muslim library kan waa buugaag fiican baa ka helisan oo aad iyo aad u fiican oo ka hadlayo waxyaabo badan caqiidada ka hadlaya iimaan ka hadlaya way badan yihiin buugaag badan baa ka helisan website-kan Muslim library la waa free waa ku soo dejisanaysaa wax walbaba yaala soo ma jirtan buugaag badan bay kaga hadlayaan darabta halkan kaga soo dhufo homekiis waa kan waa kuwan soo mid hadda buugan cajiib waaye buug aad u fiican waaye aniyu buug aad u fiican waaye marka waxyaabahaas kula soo akhriya ana waxaan idin barayo waxyaabaha aan soo akhriyo buugtan waa la yaabaysan wallahi cajiib waaye this Muhammad sallallahu alayhi wasallam kan waa siirada nabi Muhammad sallallahu waxyaabaha barta wallahi ceeb idinku tahay wallahi ceeb waaye qof dhan oo diintiisii maanta martay oo shakhsi kale waxyaabaha ugu ceeb badan markii waxaan la dhaho buugan aad buu asagan u fiican nasiil la qoray waxyaabaha la yaab kale waxa ardayda qaaliyeed waxba arkaysaan in inaad samaysaan wixii waxa loo baahan yahay inaad adiga taqaanid soo maaha laakiin ka war haddaan baadan ahayn waxyaabaha diinta inaad barato ee ugu fiicanta waa maxay balance ayaa ahaanaysa balance waa maxay waayo dhexdhexaad diintaadii meeshii ku roon adiga yaqaan
stable markaan laakiin fariiqooyin badan baa jira oo dadka duufiya dadka wareeriya oo dadka ku rida shirki oo dadka ku rida waala waxaas waxay kugu gaadi karaan diin la'aantaada ma ku dhahay diin la'aantada dhahay laa ilaaha illa diin bale waxaas maaha diintaada waa inaad barato ilaahaaga waa kuma waa inaad barato nabigaaga waa kuma waa inaad barato war waxaan arligana ku nooshahay kulli nabi maxamed dhagax kasta wuu rogay kuma tegin sallallahu alayhi wasallam dhagax kasta wuu rogay yani wax uu ka tagay wax uusan mataqaanaa barin insaanka oo ilaahay abuuray marka that's why it's very must anisaas marka website-yada waxa halka u saarto waa xasuusanaysaa because waa taqaan Soomaa I make it visible si aanan subaxdii ugu raadin oo ugu fakirin markaan subaxa furo kan waa u jeedaa isla markaan ku dhufanaya okay si aan markaa u barto waxaa jira siirada fiidiyoyo baa jira waa la bartaa waxaan leeyahay sheegay dhan oo dada maanta diinta marka laga hadlayo I think wax badatay warday primary school waqtiga ku bixisaa secondary school waqtiga ku bixisaa university waqtiga ku bixisaa at least diinta adana waliga gab ma siin oo ma wada taqaanid hadda kor waxaan xasuustaa Kenya markaan iskuulka dhigan jirnay xiisada maadada bixisa IRE waxa la yiri Islamic Religious Education oo wuxuu ahaayo diinta la baranaya quraanka tafsiirkiisii xadiisyadii waa la baranaa marka laakiin maanta qofka Soomaaliga ah haduu fahansaneen diinta waxa ka bilaabaysa quraanka markii aad barato tafsiirkiina waa inaad ku lifaaqdaa tafsiirka markaad quraanka tafsiirku waa maxay marka barato waxa ku xijinaysa siirada ya baranaysa siirada kadib xadiisyada marka siirada halkay ka imaadaa hadaa isweydiin siirada waxa ka imaanaysa quraanka iyo waxa ka imaanaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka imaanaysa iyo xadiisyada sidaas u waa quraanka ya baratay tafsiirkiisi siirada ya baratay xadiisyadii very simple waa joogteynaysa buugaagta kale oo diiniga dadku ay qoreen buugaag badan baa jira la diyaariyay oo loo diyaariyay hab qurux badan buugaagtaan oo baranaysa oo waad akhrinaysaa waqtiga is that very simple marka barato waxyaabo badan ayaa mataqaanaa shaki ka shaki baxaysa marka cilmo martaa u noqon waxa ugu fiican in suuqan forex waxyaabaha uu baray waa maxay qofka inuu isku tiirsanaan karo kaligiis wax isu bari karo mawduuca ku wareerto you just google it waa baaraysaa wax soo helaysaa waad baranaysaa muhiimadaas waa aqliyada adaa ka masuula walaalkay ama walaashay waa inaa maaliyum aqliyada kaliya rajada kaliya aad leedahay waa aqliga inaad dhistid oo baratid oo aad ku dhaqantid wixii dad badan hadda ani daawana waxaan ku sheegay hadii aad maaliyumi aad samayso apply gelisid waxaan ku ballan qaadayaa marka wixii waad noqoni waad ka soo bixi laakiin hadii aadan laakiin fahmin ka war kuma tarayso marka tan waxa loo baahan yahay inaad aad quraanka barakada maalintaada positivity-geeda waxay ku xiran tahay quraankaagi adoo ku bilaabo maanta marka waxa rabaa aad yar baa daa wuxuu ii soo qoray arday ah ma rabo ana ma jecel ardayda quraanada inay tuso I don't like it wuxuu ii soo qoray ustaad maanta wax ma noo soo wadaa markaas ayaan isdhaana duhur waa hadda already inaan iska nastaa rabay salaada duurka soo baxo waxaan rabay inaan xoogaa nasto oo annaab yar qaato laakiin nasiinada waa taqaanaa inaan iska meel fadhiisto ama aan iska geysto waxyaabo aan dhageysto audio baan iska rabi lahaa laakiin hawsheeda aniga salaad subax ayaan ku kala baxaa ardayda waan maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo time management which is so important haddaa tahay wiil iyo gabar buu ku anfacaya wallaahi been idinma sheegaayo time management-iga waxyaabaha ugu fiican qofka bini'aadamka ah inuu manage gareeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha aad ugu dhaarto waxa kamid waqtigiisa awood intee la eg waqtigu leeyahay saa ilaahay abuurtay adiga maanta ma istaajin kartid mana bilaabi kartid mana ku sugaayo waqtiga waxyaabaha ugu dhiirigeliya inaa waqtigayga ilaaliyo oo markasta oon ahaado qof energetic ah dadka waxyaabaha hadda ila yaa waxa waaye ma daashid ma niyad jabtid waxyaabaha keenoo maxay because of
side effect uu leeyahay markasta waxa ahaanaysa qof energetic waxa qof full ah oo exhausted noqonin okay waxyaabahaas ugu fiican yahay waxyaabaha labaad oo ka helaysid waa maxay time management balance inaad yeelato in noloshaada ay capable ku noqoto you capable of anything inaad sameyn karto because of energetic water balance maxaa waaye familygaaga hooshiisa shaqadaada hoosheeda cibaadadaada hoosheeda waxyaabahaas oo dhan balance ku noqon wax kala dheer ma jiraan waxbarashadaada hoosheeda kada saas u soconaya labada important things haddii labada ay baxaan time management dhibaatada ku haysato maxay time management ma lahayd and that's why maanta qof kasta waa energetic laakiin nin dhalinyaro waxa ka saa he's so happy he never get tired waa dhalinyaronimadiisa ku jira xilliga cududii xoog oo laha laakiin maalintii 1 milyan oo ficil buu sameynaya ay u badan yihiin 1 milyan ficil waxaan asaga dantiisa quseynin oo dantiisa ugu jira ka soo qaad waxa dantaada kugu jirin marka sameynayso daalimaysid ilaa intee bilood wadi kartaa saa ku jiri kartaa ilaa intee bilood ku jiri kartaa hadhoodu baa habeen markaa sii galbanaysid baa dib u milicsan dad milicsatid xataa dad milicsan baa jira dad milicsata waxa la maanta nafta iga baxdo maxaa ku daash yaad wax ugu maqnayd naftaada wax ugu maqneen reerka wax ugu maqneen laakiin sometimes you are acting dad baa caawinay dad baa raacay meel kafee sheeko la dhuhalkaas Netflix ka baxdana social media Facebook you are making a lot of actions and that actions halwa asameynaysid mataqaan marka brother and sister maanta hopefully haddii aan waxyaabahan kuu sheegay aad raacdo maanta ka bacdi time managementigaaga resultiga arki doonto waad la yaabi doontaa okay time management marka la dhaayo waa inaan fahno hadda marka aynu dhahayno trade management ganacsigeena management uu kaaga baahan yahay ee suuqii kuma dhex jirno soo maha maxaa manage gareynaa marka lagu dhahayo trade management adigii baa manage gareynaa waa exactly time management waxa waaye adiga waqtigan ilaahay baa leh 24 hours a day aan haysanaa maalinta meeqaan haysanaa maalinta meeqaan haysanaa 24 hours fiiri waa cadaalad wallahi billahi tolay dad baa waxay u moodaan qofkan niyo waa iga waqti badan yahay wallahi aan waqtiga ugu yahay dadka dhaama aragtay waqti yar ma leh haddii aad barato time managementiga sida marka u baranaysaa time management waxa u baranaysaa adiga is manage gareynaa that's it adiga you have to manage yourself nothing else waqtigan waxba kaama gelin ilaaha maamula 24 saac ay kama yaraato kama dib dhacdo waa ka your management adiga marka la rabo inaad manage gareyso see u manage gareynaa tusaalayaal yaryar inaad siin hadda aniga aroortan soo kaca aniga adinka isku mid manihin horta bataatan ina aniga iyo adinka isku yani sidaan wax u sameynayo hadda maadaama cusubta waxaan hadda kugu cusub yihiin ma sameyn kadib marka waxaan kaaga gogoleeyaa waa maxay 7 bari oo waxaan kuu diraa taxliilinta untii suuqa maaha taxliilin nafsaneed baa jirta self awareness baa jira waxa loo weyn baran doono casharada dambe laakiin hadda waxaan rabaa inaan kuu sheego 7 days ani maalintii igu yaabka badan waa maxay taqaanaa 7 maalin ma dareemaysaa Soomaa maalintii ma qaysan 24 saac 7 maalin baa stopwatch ka qabtay saacad 7 maalin baa ku xiray baa stopwatch kama qaadin taleefankana inuu damo ka ilaalinayo uu ishina waxa soo saacada oo baxay 7 maalin waxyaabaha aan qabanayay saacadihii koobnaaba ka jira ajiib baa waxa ii soo baxday inta waqti aan ka faa'iideysanayo haddaba adiga marka hadda kuma dhahayo stopwatchka sideeda samee haddii kuu fududahay samee stopwatchka laabta u fidi samee saacadii ku soo saar because 24 saac lagu dar 24 saac 24 saac lagu dar 24 saac 24 saac ku soo saar moogta dhood waqtiyadii baa la rabaa hada xisaabta ku fiicanta inaad kala jarto wal waxa samaysaa walaashay ama walaalkay todobada bari taxliilin isku samee waqtigaaga halkee buu galaa
وأنا سويدش معيب ما أنت أنا accountability إنه حسابينه عيب dad baa laga inuu waqti uma hayo daada maanta waqti u helin waxaa ku tusaya adduunka inta cimrigaaga ka dhiman inaad ku dhamaysato ciriiri iyo energy la'aan iyo balance la'aan iyo wareer iyo kadeed been run igu imow I'm not lying run igu imow waxaan ku dhahay cimrigaa inta ka dhiman toddobadaa beri inaa istaxayliso waa diidda sooma cimrigaa inta ka dhiman waa 70 sanaad xitaa ilaahay ku gaarsiiyo waxaan ku tusi in aad waqtigaasi caadi uga faa'iid when you know self analyze markaa samayso ama time analyze waqtigaa markaa taxliiliso aad iyo aad baa waxa kuu soo bixi doono yaa 70 saacadood oo baxay ama 80 saacadood ama 100 saacadood oo baxay wallaahi bilaahi tullaahi waxyaabo yar baa ka faa'iidaysataa waxyaabo yar baa ka faa'iidaysataa aniga game changing ayay ahayd markaan bartay time management game changing ayay ahayd nolosheedoo bedeshay because of it's very easy haddaba ani rule waxaan isticmaalaa la dhaho waxaa lahaa fourth form anigaa samaysta rulekan wuxuu ku xiran yahay wax kale maaha waa rule aad iyo aad u fiican haddii anigu ma dhahayo rulekan isticmaal laakiin haddii kusoo baxaysid waa ila isticmaali kartaa very simple waa ila isticmaali kartaa waa 4 anigaa samaystay techniquegaas xaqiiqda waxaan igu soo dhacday wallaahi buug ma akrin xaasha lilah anuu ma garanayo haddii buugaa ku jirtana anugu buugaan ka akhriyay ma jirto laakiin anuu hadda ka hor markaan waqtiga baranina managementigiisa hal maalin igu soo dhaca warniyo bal ka waran baa waqti isla eg oo fiican oo fresh aad tahay marka waxaas dhahay 4 subaxnimo kac 4 subaxnimo markaa kacdo howlahaaga dhan ilaa 4 saac subaxnimo kale ha ku dhameen oo deeliga ah kadib 4 saac subaxnimo waxaa samaysaa indha guduudso because of waxyaabaha 4 subaxnimo markaa kacdid ay samaynaysa hadday tahay waxbarashadii hadday tahay wax diyaarintii hadday tahay wax akhriskii hadday tahay jimicsigii jirkaagu daalayaa soo ma ogid bini'aadan baa tahay marka 4 ilaa 6 duhurnimo inta salaada laga gaarayo mataqaanaa duhur indha guduudso okay salaada duhur soo kac mataqaanaa salaada subax maxaa la dhahaa salaada duhur soo kac markaa soo tukata haddana bilow howshaadi dailigaaga bilow maxaa rabta haddana ma inaad wax akhriska sii fidisid ma inaad casharo dad u diyaarisid ma inaad arday qaabishid ma inaad haddana shaqada halkaas kasii bilaabanaysa 4 ilaa iyo 4 galabnimo 4 galabnimo haddana pause qaado soo tuko yacni dee waa ogtihiin 9 saac iyo xoogaa salaad aduu soo markaa cibaadada soo dhamaysata haddana soo laabo haddaa xiisad bixinaysid haddaa familkaa waqti siinaysid waqtiga sidaas oo wada qorsheeya familka laftiga waqti aad muhiimsan inaad geliyo then marka 4 ilaa 5 wixii loo dhaafo maqrib baaba iska jira maqrib soo tuko then ilaa maqribkii mataqaanaa masaajidka ku ekow heshii markaa soo tukato waa waqti fiican waa 1 saac iyo xoogaa heshii markaa soo tukato imuu haddana familku waqti geli cashada isku diyaari 4 saac knock out iska dhig finish marka rulkaas aniga ii fudaaday waa qaacido ilaa hadda aan isticmaalo muddo badan aan soo isticmaalay very simple ayay ahayd okay marka haddii aad welcome haddii aad 4 isticmaali karto oo kugu soo dhaweyn aniga waa trace la eg oo aad u qurux badan 4 kac 4 subaxnimo nasiina indha guduso 4 galabnimo howshaada u sii wado ilaa iyo mataqaanaa duhurka ilaa 4 galabnimo howshaada sii wado 4 galabnimo imow ardadaada familkaaga waqti u kala qosho waqti la qaado then markaa maqribkii kusoo tukato masaajidka ilaa cishaha waqti baa jira aan ugu talagalay cishaha iyo waqtiyaa jira waana idin tusayaa marka kadib wuxuu ii noqday model fiican waqtigeyga aad baan u jeclaa kale waxaan la yaaba wax waaye baraka waqtiga kuu yeelanaya la yaabka kugu dhici doonto balansiga yeelan doonto waqtiga baraka kuu yeelanaya ma jiraa waqti baa igu socda waqti baa igu ordaaya waqti baa igu taagan waqti dadka waxyaabaha bini'aadamka maanta haysta wareerka taasa ka qof maanta
waqti baa igu yar waqti baa dhamaad waqtigaa wuxuu ku yeelan barako sababta barakada keenaysa anaa kuu sheegaa marka bini aadamkana anaga gaalo ma nihin muslim baan nahay waxyaabaha priority koowaad oo waqtigaaga waa maxay cibaada ama worship ama dikriga ilaahay baa la dhahaa cibaada waqtigaaga ugu horeeyo waa inaad u qorshaysto cibaada kow waxyaabaha labaad oo lagaaga baahan yahay inaad u qorshaysto waa familka waxyaabaha saddexaad lagaaga baahan waa maxay studies ama de waxa baranaysid ama waxa akhrinaysid kullu studies aynu soo gelinaynaa okay waqtigaaga markaa dad badan maanta waxa waaye familkii waqti iskuma hayaan familku laftigiis waqti u baahan yahay maanta famil leedahay familka waqtina la qaadato hooyo aabe kulli waxyaabaha maanta aadka inuu burburiyo qoys ahaan Soomaaliyeed nahay waxaa ka mid ah social media familku waa wada maqan yahay telefoonada lagu wada jeedaa waqti ma wada isku qahilaayaba si inuu telefoon buu qolkiisa kula jiraa waagu horaaba la qaatay waxaan isin jirin dadku way isjeclaayeen waqtis la geed hoostiisa la aadi jiray la sheekaysan jiray waqti wax fiican baa la sameyn jiray nowadays wixii marka intaas muujitaa waa kuu muhiim adiga laftirkaaga waxyaabo badan jiro oo self care waqti u baahan yahay aad iyo aad aan aaminsanaa self care kusoo adiga naftaada jimicsigaaga cunadaada daryeelkaaga kulli waa self care adiga waqti inaad isgelisida loo baahan yahay afartaas ayaan rabnaa mid kasta inaynu waqti ka fiirino marka wuuna kuu fiicnaanayaa marka maxaynu haysanaa marka waxaynu haysanaa subax galab aduu casar diiqi oo kale galab baa la iska dhahayaa waxa evening okay maxaa qaldan okay evening oo kale iyo habeenkii right saddexdaas wax waa loo baahan inaad kala qorshaysid maxaa haysataa waa subaxdii galabtii casarkii liiqii afartii iyo habeenkii waxaa maqrib wixii dhaca habeen baynu xisaabineynaa waqtiga inaad saa ula socoto hadduu gabalku dhaco qoraxdaasi tagto ay dhacdo night routine-kaaga waaye eveningna waa xilliga wixii loo dhaafo 6 saac duhurnimo waa inaad u xisaabsantaa inaad yani wixii loo dhaafo 8 saac iyo halka waa evening ama duhurkii loo dhaafo okay halkan hal mar aan ku darsanayna duhurkii selectorkiisa waxa loo baahan yahay inaad samaysid wax marka haddaa ardayad tahay laftirkaa u baahan tahay kan u baahan tahay haddaa ardayad tahay maxaa khaldan bismillaahi kana wuxuu noqday flop bisa intaasaan rabnaa inaynu afartaa waqti halkan 3 4 iga dhig afartaa waqti afartaa siyaabood inaad kategorigaaga haddii wax kale jiraan haddii waxyaabo kale kulli ay jiraan qoro there's no problem dhibaato jirta maaha waxaan wax dhib jira maaha okay marka halka number 4 aan ka wadaa marka
marka waxaan rabaa haddii aad kacayso 4tii subaxnimo 4tii already subax iska dheh because of waa xilliga ugu muhiimsan maskaxda buuq ma leedahay familka dhan way kaa jiifaan you know waqtiga inaynu fiirinaa rabnaa ma ogtahay reerku wuu kaa jiifaa qaylo ma jirto xilliyadaas waa xilliyo fiican caadooyin baa jir markaa la qoro caadooyinkaa dhahdo 4tii inta anu iska sheegi maayo 4tii wax ii khaasan samee idinkana wax sirba inaad lahaataan baa loo baahan yahay oo 4taas aad sameynaysaan ma ogtahay ma wax aniga inta laftirkuna sida anaa samsano telefonkaygi okay waxaan idin barayaa guys haddaad aragtaan waa yaabi doontaa waa arki doontaa resultiga iyo waqtigaaga sida u bato anigu waan soo maray we've been all there inaan marar qaar aan waqtigii inuu iga dhacay aan u moodo inaanan aad waxba u sameyn aan u moodo inaan dhibaatoodo in aan rafaado okay waa kan aniga saakay waa kan application la isticmaalaa jira morning routine-yada lagu qoro hadda aniga saaka maxaa sameeyey already 13 habits aan sameeyey 13 caadooyin baan sameeyey waa kan journaling exercising connect with someone you love deep work shaqooyin badan baan galay oo ka mid tahay forecasting-ka aan sameeyey journaling baan sameeyey waxyaabo badan my most 3 important task adu waxaan sameeyey wax akhris xataa waan dhameeyey already wax waan akhriyey nap waan qaatay already abaarka hore aan la hadlayaan soo kacay waxyaabahaas dhammaan mid kasta waa tig baa saaraysaa tig baa saaraysaa boys and girls markaa adoo 12 caado waan ansixiyey fiiri goormaha ayaan sameeyey waa dareemaysaa 12 caado midba qaadanayso 30 daqiiqo 25 daqiiqo 45 daqiiqo 25 daqiiqo 8 daqiiqo 10 daqiiqo ee qaadanaysa ayaan sameeyey maxaa waqti intaas subaxyoon balday intaa waqti leh almost waxa laga yaabaa 3 hours 3 saacadood inaad ka takhalusto oo awal maa yacni kaaga bixisay kadib waxyaabaha ugu daro waa maxay already waa morning routine waxaa jira haddana wake up routine ayaan isticmaalaa tusaale hadda oo kale tani waa subaxda ani waxay ii bilaabataa 6dii waqtigan sii kala qaadanaa fahma 4tii iyo 6dii waxba iskama gelin 4tii howlo baa jira way kala duwanaanayaan 4tii subaxna markaa kacdid isla markii ma inaa computerka orod ku dhahayo warwadi muwaananta forecasting ku orod lagu dhahayo maaha 4tii waxaa jira caadooyin yar maxaa kamid ah inaad sariirtaada iska hagaajisid inaad biyahaaga cabtid inaad cadeeyatid inaad grateful noqotid oo ilaahay xaggiisa aad u ordo dee tuko masalaad baan kuu sheegi tuko 2 ragcadood witrigaaga tuko duceyso ilaahay wuxuu subax kasta haddaad intaas ku bilowdo how energetic you become barakada kuu galaysa waqtigaagaas you will be amazing laakiin anigu kuma dhahaya taa cusubta hadda ku bilow dad baa caqliyadoodii kasab noqotay in ay sameeyaan inay kacaan 2 saac subaxnimo 2 saac subaxnimo aad intaan noolniyo adi ma nooshahay mise waa dhimatay xitaa 2 saac subaxnimo marka foorka intaas waa habit yar ma qaadanayso 10 daqiiqo ma qaadanayso ka 4tii markaa kacdid cadayo isla markii biyahaaga cab must biyo haagad biyo haddaa cabi kordha cab waa 2 koob biyo haddaa 1 koob cabi karto koob biyo cab markii dareen gratitude-ka ilaahay uma hadnaqdo because of sodon nabiga sallallahu alayhi wasallam 360 baynu leena kala goysho mid kasta waa in ilaahay thanks u bixisaa waa inaa mid kasta maalinteeda sadaqada la soo maxay digriga ilaahay xuska ilaahay 360 jones subax kasta haddaa sadaqada ka bixinayso allahi abuuray u celinayso u sujuudayaan oo ilaahay ku xamdinayaan oo xusayaan dee waa barakeysantaa maalintaada barakada halkaasba kaaga bilaabo okay 6dii wixii loo gaaro 6dii markii la gaaro salaadii subax baa laga soo baxay kii masaajidka famous laakiin 4tii gurigaaga ku samayso howlahaaga private-ka masaajidka waa 5 iyo 10 daqiiqo baa la aadaa salaadaasi 1 saac ka hor baa sii diyaarisay kadib soo tuko
waxaa samaynaysaa markaa waxa kale baa jira markaa salaada kasoo dhammaato waxyaabaha jira oo afartii la socdo qur-aankaa akhriso ilaa 6 laga gaarayo ama 6 iyo bar very simple qur-aankaa akhriso tafsiirka pageka hadda intusaa giso qur-aankaa akhriso baraka waaka fiiri maxaa samaynaysaa professionkaagii waa isku wadaa meel kaa dambaysana u shaqaysanaysaa oo ilaahay og yahay annagana aan ognaa aakhirada marka 6 iyo bar ama 6 maxaa waaye marka 6 iyo bar shaqadaada professionkaa bilaabaysaa haddii forecastingkii ku bilow journalinkaa markaa habaysid maxaa bilaabaysaa oo kale gelaysaa backtestingkaaga haddii 30 daqiiqo aad helayso backtest garee markaa backtest ka baxdo 45 daqiiqo waxbarasho ah gal waxaa doonto baro buugga laftarkiisa waa waxaan ku leeyahay 40 daqiiqo haddaad rabto xadiis ah youtube-ka ka geyso baro maaliyum waxaa kugu kordhaan siirada nebiga 40 daqiiqo ama 50 daqiiqo kamida baro 1 saac kamida baro buu yaqaan soo qaad isbar ya ilaahay isbar wax adiga kugu saabsan baro alfaa'iido maalintii wax faa'iidayso meelahan ha ordin dad waxooda hadaba ordin ama dad sheekadooda iyo buuqooda ha dhex gelin horta adiga wax faa'iidayso adaa lagu weydiin waqtigan moogta ka faa'iidayso marka halkaas saac faa'iidada kama shaleynaysid kadib 30 daqiiqo wax akhris hadaa awood akhriso shaahaaga iyo qaxwahaaga samayso okay when you are killing markaad dilaysid xilliga hore cilmigaagii dadkii inta hurdaan aad ka dhex bixiso already 2 saac bar ama 3 saac waxa laga yaabaa daily routine-kaagii inta ugu muhiimsaneed inaad qoorta ka wada goysay markaas you don't care wallahi hal waxyaaba ugu faa'iidada badan waa maxay markaa 2 saac bar 3 saacaad ka takhallustay bakala jecel hadda qof marka aad ku soo dhex galo wax ku diro waa u qabanaysaa hooya adeeg qolka ma dhibsanaysid Allahu akbar oo doonaysaa adeeg suuqa hooya iga dabo doonaysaa you are free waqtigaaga backtest ka waa sameys forecast ka waa sameysay waxa uu akhrisay casharadaada waa daawatay what are you doing laakiin haday aan wax xasuustaa marka time management ay aqoon jirin oo xilli waxa jira oo 2 hours flow state ayaa lahaa ku dhex gashid laakiin fiiri flow state ka dhex gal laakiin ogow waqtigii family-geygii ya baan waxaan sameeynayaa forecasting iyo backtesting iyo sameeynaa ilaa waxaanan sameynin managementii markaas wiilka oo hintiis waa dhibsan jiray gabadheeda inay dhahdo waxa ay shaqo waa dhibsanayaa waa dhibsan jiray balance ma jirin rafaad waxa dhigi jiray yaa guriga ama yaa gurigan ka dhexsaa baa ku qabanaysa dadkan war aniga miyaa khaldan mise anaa khaldan why because of time management malihi time management hadduu jiro balance yaa jira daawada halkan kasoo sheegay balance markastana energy-gaaga ilaalinaysa recharge samaynaysa oo isjaajiranaysa hawshaada recharge family waqti lala qaata recharge kana iyaga mid yahay laakiin waaga ma ogeen shimbir buu maanta dhan buuwaysa oo destination lahayn meel ay ku degta lahayn so ma nafta kama baxayso de maanta dhan baalasha baaf waxyaasha ugu mid laptop xataa jibinaysa naga daaya hana wax baan ku jirnaa xiisad baa ku jira soomaalida qaracan wuxuu yihiin kayoori gurigooda u yahay wax waaye waqtiyada kala samaysan time management marka jiro marka maxaan ku dhahaa wake up routine samee routine waa maxay waxaad raacaysaa la dhahaa routine habit caado araacayso wake up routine-kaaga very simple ahaado cadaygaaga dee ma ilaahay waa la hortegi af hura waa mayd cadayo Soomaaliya waa qabow xilligaa biyo haddaa kuleysa ka dhow isku shub haddaa qabowga jecesha dad qabowga jecel qubeyso xataa even is good haddaad dareemaysa didid inaad isku dhigta habeenka qubeyso shower samee it's good routine daily-ga ka mid tahay nadaafadda de samee cadayo biyo cab
ilaahay u xamdi tuko hadaa uu shower qaado ku darso wake up routine-kayga subaxda markaan kaco fresh because you will feel inaan nooshahayba qubayska laakiin aniga dee idinkuma dara hadaa cusub tahay qaylada reerka dhan kugu toosid biyaha qabo hadaa kuleysan karto oo ku yaalaan kuu karo oo kale ama baby gas samee kuleyso markaa kasoo laabato masaajidka quraankaaga ha kugu jiro wake up routine-ka ha kugu jiro quraankaaga shanta markaa imaado quraanka akhri quraanka iyo buugga waa kala labo buugaagana hadaad buugaag kale caqiidooyinka iyo tasiirooyinka waxa akrinaysid waa gooni quraanka waa gooni ani waxaan aad u jeclahay oo routine-kayga subax kasta ku daba maxay fooxa shido is good fooxa waa positive impact ku sameynaya carafta spiritual effect ku sameynaya fooxa shido fooxa soo qaado bahalkaaga kii korontada hadduu ku yaal foox ku shubo shido haddii kii manualka ku yaalo caadiga maxaa la dhahaa fooxa soo qaado ku shubo quraanka marka kuu baxaya quraanka akhri tafsiir iyo khushuuc ku akhri 30 daqiiqo 45 adiga tay room hal maal laguma dhisin adoon weliga asbuuci ama bishii hal mar buug kitaab fur markaa ku dhaho aniga subaxii maalka ay soo furso kitaab fur wallahi inaad iga yeelin oo ogahay خير قوة واحد سميسا 10 دقيقة وكو حيرو ساعة أو 10 دقيقة قرآن كأخرسو ترتيب كو بلو 10 دقيقة هذا أبوغاي 10 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة هذا أبوغاي wake up routine مركا سميسيت هدنا محا آدينا morning routine سمي morning routine كاقي محا كمي أما work routine ده shaqadaada okay work routine because waa shaqeynaysa shaqadaada xiliga marka routine-ka 6 bar hal saac hada soo geliso is good no problem because suuqa ognahay laakiin waqtiga waa inaad isku ilaaliso wake up routine markaa ka tagto work day routine-kaaga ka dhigo work day routine routine-ka maxaa kamid forecasting-kii backtesting-kii reading-kii exercise-kii way badan yihiin laakiin tartiib haddii akhlaaq aad ku biro exercise-ka isla markii maaha inaan ku dhahay gym iska tago hal saac soo jimicso war hal saac jimicsi ha ka bilaabin push up ka bilow 10 xabo push up maalintii is good tartiib gabaray adigana wax waaye gurigaaga ku bilow inaad ku boodboodo jumping jacks waxa la jira inaad ku boodboodo 5 daqiiqo isku leysa sameyn ka 10 daqiiqo lugaha la qabsanayo maskaxda la qabsanayso jirkaaga inuu maanta dhaqaaq sameeyo gabdhaha stretch xataa waa sameyn karaan inay dhabarka qaac ka siiyaan oo kale in gacmaha ay ruxruxaan oo kale ay dareemaan flexible iska dhigaan routine-ka ku darso waxaa kamid ah aniga aad ugu jeclahay journaling in la sameeyo daily-gaaga hadduusan ku jirin journaling waa dhibaato traded sida uu journal galena ay loo baahan yahay aqliga niyadaada inaad journal galayso waxyaabaha ku soo dhacay inaad qorto fikradaha qorto fikradda negative-ka qor fikradda positive-ka qor hadhoodii at the long term bishi markay dhamaato fikradaha negative-ka maxay kugu soo dhacayeen maxaa sameysay oo khaladkan sameynaya si aad u joojisid journalinku aad buu fiican yahay nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu niyadda waxyaabaha ku soo dhaco oo thoughts-ka loo yaqaano labo ayay u qaybiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam gaaladan hadda way dhahaan thoughts-ka waa constructive and destructive nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri constructive thoughts-ka niyaddaada waxa ku soo dhacaya mid malaa'igtu ka imaada midka destructive-ka wuxuu ka imaada shaydaan oo shaydaan qariin ayuu leeyahay uu nugu lamaaya Soomaha marka waxyaabaha destructive-ka uu shaydaanku leeyahay samee ha sameeyna qor journal gale qorsaan insan maanta ayaan ku niyooday insan maanta ku fikir qor journalinku wuu fiican yahay hadhood bil kadib waa fiirinaysaa maxay tahay waxaan iisoo tusaya because evil root-ka ayaa aadaysaa camalka xididada booqan doontaa si aad camalka u joojiso xun akhlaaqiyaadka routine-ka saa u jarto habidka caadada saa u jarto laakiin wax meel ka soo farcamaado ogeyn ma goyn kartid been ha isku sheegin
هي عملك وناكسن محوك إمادة عمل هذا وناكسن قرق وصل دعوة وحوك إمادة وناك عاد صباحك استسمينش صلاة الليل كتكنش أن كاسمينش صلاة وقتها تكنش دعوين كاسمينش ذكري كاسمينش وحبها دون أيها كسبة سي أدو جوك سدو ما سيلا بتجبارس وهاي إفكت هاي شيء بوزيتيفا markasta effect positive oo meesha imaanaya negative ku yaraana hadhoodina evening soo gabagabe evening routine kaaga samee markaa galbihii maxaa sameynaysaa galabtii familka oo kale waqti haye adaaba mar labaad wax akhriska kusoo ceshanaysa 2 times waa caadi waa okay wax akhriskaaga kale kusoo dar waqti wax arkaysaa marka waqtigii waaba ku buuxaaba yeah evening routine waa dhigi karta marka sidaas sameynayna ama waxaad sameynaysaa evening routine kaaga bedtime routine xiliga sariirtaada maxaa sameynaysaa waayo waxaynu u baahanahay tusaale markaa sariirtaada sii aadaysid familkii waqtina la sii qaadatid self care waxyaabo la jiraa ayaa la sameeyo inaad adi naftaada dariisho oo kale qubeyska oo kale cadayga oo kale haddii jiraan dee waxyaabo kale oo naftaada inaad iscafiso oo kale oo marsatid waxyaabo fiican inaad body lotion jirka marsatid waxyaabahaas oo dhammaan routinkaaga ka mid yihiin saaxiib meeshan nucankaaga iska dhigin isnadiifi habeenkii adoo qurux badan oo carfaya seexo ma ogid gooraa dhimanaysid you don't know isnadiifi cidiyaha daarto jar isnadiifi maanta lagaga sheekeyn maayo wallaahi bini aadam miid soconaya nadaafadda ku dadaal adhooda qofka ku dhaqi doono ama yani kugu sameyn doono inuu ku dhaqo soo dareemi kadhaa gacan bini aadan baa maraysa markaa dhimato laftirkaaga ku xisaabtan marka saa isku nadiifin kardho isku dadaal naftaada marka bedtime routine-ka waxaa kaloo ka mid oo aad u fiican biyihiina cabta haddana joogtayso waxyaaba waxa jira markaa dhegeyso qur-aanka oo kale haddaa ku seexan kardho aniga aad iyo aad waxaan joogtay qur-aanka nin la dhaho mishaari ayaan dhegeystaa khayr allah siiya sheekh waa fiican waa ku seexdaa 2 saac waa suuratu baqra ayaan ku seexdaa waxaan kaloo sameeyaa roob ayaa ku lamaan roobkan waa jeclaa marka awal roobka ayaan dhegeysan jiray marka dambe qur-aanka iyo roobka oo isku jira ayaan helay hadda kahor kadib sidii baan u joogtay qur-aanka iyo roobka xoogaha gadaashiisa background roob waaye soo hurdo fiicanaa helisa si fresha 4tii markii la gaaro aniga aad baa isku kontroolaa mobilkayga lagama yaabo 4tii inay ila dhaafto social media iyo filimka idinkaadin dhaha aniga may xukumo waxaan anaa xukuma haddii adiga roob dhegeysi iyo quraan dhegeysi maahay hadduu kugu adag yahay taleefankan inaad saa ku tahay fadhiga ku soo xir baan ku dhiilaa taladeeda qaado haya mabow fadhiga ku soo xir faraha ka soo qaad waxa us waa dhibaatoonaysa lacagta 5 saac subaxnimo 5 saac habeenimo haddana 6 saac okay waxaan markaa idin sheego markaa halkaa isbaashu macaanta hadda dhanaanaatay waxaa idin sheegayaa waxaan qof kasta miyaa la rabaa inuu sameeyo mise qof iskugu toosantaa waxaan kuu sheegayaa ama ha kaa kala daadsanaato horta hal midaan kuu sheegaya taladeeda qaado ama ha kaa kala daadsanaato ama ha iskugu kaa fadhido wallaahi billaahi tullaahi haddaad samayso hadda aad bilowdo haddadan maanta aan kuu sheegayo soo qaado buuq iyo qalin bilow inta aan kuu soo qor wallaahi waxaan kuu sheegayaa oo billaahi kuu sheegayaa adduun iyo aakhira inaad liibaanaysid adduun iyo aakhira waa guarantee waa 100% aniga maaha there is no loss baan ku iri waa 100% waa win adduun iyo aakhira ku dhahay waa liibaanaysid weliba 5 waqti salaada 5 waqti waa 1 saac iyo barbaan u qorsheynaa because of qof muslim ah tahay fiiri sunnada tuko walaalkay masaajidka hormar inta duhur lagu jira tagin bataatan duhurka inta laga 2 ragcadood tuko duhurka casarka deg 2 ragcadood oo tuko maqribka hormar tuko adkaarta akhri aduu 1 saac ay barba oo maalintii waxaan ku leenahay cibaado oo refresh ah ilaahay inuu si naturally aynu nagu raadinaynin de natural ilaahay shanta waqti
وبركة ماشي كجو والله بالله تالله تطبع وحي قشيان والله أنا قاعد أسوي ما هلا لا بكون كليا لا بكون أما كل شيء أكون بلا وحوله كنعسي بروفيشن كي والله رورتان بلا صلاة بلا يعني قدر بان والله نظام كتوسين له روتين والله في اللي أسكت ضد ويحاول يسكت وقت ما بين كون دفع يا والله بروبلم بقى وريا يدقيسو وريا waxa horta la soo mar laakiin waa qasaarada waxa loo yaqaan waa slippery slope waliba meesha ugu daran wallahi meesha ugu daran ba ku jira dadka halka ilaahay wuxuu siiya wake up call oo daran marka saa u jiifto ilaahay wuxuu ku tusi wax buu ka qaaday aad jeceshahay saa u soo carartid haddaba u degtay time ka faa'iideyso wallahi billahi qof soconaya la caawiya ilaahay kuma caawinayo adoo jiifo ilaahay taas waa been waaye weliga ayaa laga dhaadhicin waxaan isku dhufsanaysiin iska daayay bini aadam aan isku habeenin walaalkii 2000 iyo wala qaaday 5000 markuu ii soo diro isugu tusinaya waa ka soo sameen fiiri walaalka bini aadam maanta dhiman karaa hadduu rabo kugu boodi karaa hadduu rabo asaga waxyaabo filnaya wax ka halaabi karaan hadaa la rabo ilaahayba kuguma talagelinba asaga lacagtiisaas inaad heshay adigoo soconaya inaad hesho buu kugu taray sayil marka muddo 7 sano dambe ii fadhin meesha warka kac meesha war ilaahay ma la khiyaano you know some people think ilaahayna abuuray oo naga abuuray baynu inuu khiyaano karno war ilaahay wuu ku maqlaa marka waxa xisaabta khaldan isku dhufsanaysa doqonow waxaadan hubin waxa future projection ka iska ilaali khaldan walaalkii hadda bilow wallahi billahi tullah hadda bilow fiiruha darbu ku dareemaya dhalinimo laptop meeshtada laga yaabaa lacag akoon ku shubtay meeshtada laga yaabaa akoon weyn meeshtada laga yaabaa in garab meeshtada laga yaabaa I know we've been all there wal jira rabu waa dib waa soo wada maraa laakiin waxaan ku sheegay dhageyso inaad waqtiga hadda hagaajisato wax ka hormar war hadaa rabto demo trading samee laakiin routine ka samee ana ku tusi doona ilaahay sidoo wax isku kaxsho you will be amazed waqtigaas ugu faa'iideyso you will be amazed how you become very happy very balanced very energetic muhiimad wata waxay ku tarisaa habeenkii 7 saac la seexdo waa xayaat kalab fiiri ani waagay waqtiga ka faa'iiday waa yaabi jiray xal waqti ka faa'iiday badii dadku waxa ah Facebook intay habeenka galaan waa la yaqaanaa waa 2010 11 12 13 wala dadku waxa ah ciyaar report baa dhigi jiray Facebook qofkii yaqaan dadku waxa dhex saxday yani Facebook habeenkii dhan dad la dhibaateena report wala dhafra waqtiga fiiri soo gudna hata waan ka shalaaya marka dib u wanaagsan waaga maxaa ka khaldanaa ma waalnayniyo ما لا يعني فيسبوك قررنا status لعيرسنايو كومنت اللي بحنايو وقت اللي دومينايو والله حسوستا إن لو ساعة الساعة صباح نمو يا فيسبوك أنقلو إنا كبح جري طوانكي لا حول ولا قوة إلا بالله يدن بالله طوانكي صباح ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله ما أنت ضد أساسها taladan ma qaadana I know laakiin waxa ku sheegay waxa iska dhumin 2 sano waqtigeed 3 sano waqtigeed iska dhumin fiiri ka shaqeysii waxaan baro wallahi billahi baro fiiri midaan ku kala ku fahansiinaya tradingka waa aragteen khiyaali oo walba khiyaali laga aaminsanaa Soomaa maanta runtu aragteen waxa u baahan waaye routine lacag inaad haysato lacag ku bilowdo ku shaqeyso Soomaa bilaash ma fiiri waxyaabo kale la bartaa jiro waxyaabaha kala baro xirfadaha kala baro yaa diiday maanta telefoon si loo furfuro hadii aad barato xirfad laakiin waqtigeedii aad uga faa'iideysato barato 40 daqiiqo maalintii telefoonada si loo furfuro wiil telefoonada meel la inta u tagto saaxiib practice iyo faa'iiday 40 daqiiqo maalin ma qorato ama 1 hour maalintii meeshaan aadaya ku xirnaanaya wax xirfad qorontooda waa xirfad wargacan bini aad wax kasta uga bixiso waqtigaaga meesha social media dhumin nin yuhuud ah samaystay
advertisement-iga aad u daawanaysa lacag billions uu ka sameeyo waa aragta ya salaadaadii waxaasaa ku ilowday marka hadda bilow it's never too late war hadda bilow xisaabta khaldan iska da 2,000 halka ka rajeen soo dhici 1,000 halka kale 3,000 halka waa been baa isku sheegtay you are lying yourself who knows inay lacagta soo dhacayso adii day midaan kuu sheegay markaad dhahaysid salaada waxaan bilaabaya markay wax iskugu kay toosto who are you yaa la gurgurtamaysaa war yaa la gurgurtamaysaa war miyaadan ogeyn xaalad hubaanti la'aan inaad ku sugan tahay war miyaadan ogeyn markaa xisaabta isku dhufanayso markaa saa u seexatay nafta kaa haayi karto miyaadan ogeyn doqon baata ya doqon baata war salaada tuko war salaada bilow routiinka fiican bilow afartii kac tuko war fiiri salaad waxay kaa tiin tuko ambiyadii maanta anaga Facebook baaba iska celin la'nahay nabi Sulaiman alayhi salatu wasalaam waxa waaye fardiisa ugu jeclaa fardaha ama hal maalin salaada ka mashquuliyay buu qooracay kulligood luntu dheereeyo diga tawi ilaahay digriisa iga fogeynaysa waaba idinka inuu ku mashquuliyo quruxdiina iyo ciyaartiin uu qooracay fiiri maanta gaarigaaga habeeyo ku dhaqleynayso 7 saac iyo 8 saac habeenimo yaa ku dhafrinayo qurunkii balaayada iyo wareegga iyo heesaha iyo muusika ilaahay dartiis ma u gubileen sheekadaas waa sheeko waaliya dhilay oragata hadda waa ka saas waa caada samaysatay habeenkii 8 saac habeenimo guriga imo maxaaba mobilka intaado kaasi buu jidid 8 saac 9 saac bum hurdada nahdeeda iyo macaankeeda waa 4 saac ugu horeyso waa refresh ka dhigaysa maxaa ku wato 4 hadaa seexato 5 saacadood refresh kugu filan laakiin haddii aad seexato ka waran 9 saac habeenimo maxaa seexatay nah ma leh hurdada xilliga ilaahay leeyahay wuxuu imaanayaa samada ku adoo lugta taagaysa waqti camal marka time management-iga balance energetic daarto time sida u manage garee subaxdii 6 iyo 1 saac subaxnimo intaada kugu muhiimsan war it's very easy 40 daqiiqo 20 daqiiqo 20 daqiiqo ka dhigo hadda oo kale forecasting iyo journaling isla socdaanba ya ka forecasting soo maskaxda u fadhiiso screenshot ka qaad gali Telegram-kaaga ama gali ka waxa forecasting ku sameeyay mid kale aad raac gali adaabta forecasting-ka backtesting-ka ka dhigo galbihi oo kale is okay xilli fiican laakiin waxa ku sheegay routine-ka marka ku socotid wallahi billahi tullahi nobody will violate your rulings qofna ma jiro oo ka soo dhexgalaya macaan ba ku sugnaanaysa xaalad waxa ku sugnaanaysa rajo leh oo fiican oo qurux badan wada toosan qararac ma jirayso dad isna iska hor imaataan ma jirayso qofku dib gelin doono ma jirayso it's all there time management waa your management adiga saa u management garayso adaa ilaahay ku siiyay aduu ilaahay ku abuur waqtiga adiga leh aduu ilaahay ku ka faa'iideyso macna ka loo abuur ma jirto time marka you have to walaashay walaalkay maalintii subxaan allah goora dhahdo goorma kugu dambayso goora ilaahay ku shukriyo goorma kugu dambayso isweydi waqtiga fi wareegaya waa ceeb kugu tahay 24 saac ya ina ilaahay u hurweedo 2 saac kamid ama 3 saac kamid ya la ceeb kugu tahay it's very shameful miyaada ceebsaneen sababtoo inta sabaysataa marka waqtigeenu ka faa'iideysano tan kale xisaabta qaldan wallahi iska ilaaliya والله سبحانه وتعالى كان دلاجة والله وضدك الدلاء وهدنته كذا هذيك سماه وحي أمس أنا قلبي مسكين كأولا قلبي أسافك يا تقول له كل هذا قلبي والله نحرس بالطح نحرس والمحل حرس بل أنت متو كتدي حرست على كل قوس ومتقف أنت كن سمو كان دلاجة كذا كآخرون إلهي حق حرق السبه استعب ما أنت وقدر أنت هاي بهاش قبضته إلهي أدعوك الإلهي مستجيبات وأجيب يا كعب هذيك
لكن الله قلبي وان في عنها salaadii wixii abi ka ilaalin lahayd dhan baad dhexgelaysaa marka xumaantii faxshigii xantii salaada ani lagama dhaal ani qof markuu dhaho qalbi fiican alle ana I look ma tukado soo qofka qalbad fiican qalbada ku madoowaada waan dhaa qalbiga halkee waxa waa waxyaabaha sadaqan la baxa qalbi fiican naxariistaada iyo waxyaaba baxsanaysid adaa baxsadee waxa baxsanaysid annaga noo mintaale laakiin waxa ku taala adiga xiriirka ilaahay uu ku yiri aniga adoonka iba tahay caabud inaad caabudo macna kale uu kuma amro ku yiri caabud wallahi yunus wariirin runta ma idin sheega waqtiga ka faa'iideysta ilaahay xaqiisana u fogaado yani u orta oo u dhawaada ka durka adduunkan wareer waa wallahi hadda shalamiyeed yarba wuxuu soo dhigay من سكرين شوت بيقولون قبلوه يقول لده بدي كنتين هيك عرف كإلهي محل لقى عرراي وحلقة عرراي يوروب تما أنت الله عرراي صوحن ما كتاع دبعت قرح استلاه قال أنا قلت مباح أمودين فرحات إنها هستان وح فرحات هستان ملا والفرحات وعقيدة الإلهي اللي قلت جنادو يحقق سلو أرتو يقلب الدادو نسينا كسوغن حالة دادو أبى أنت هذا قال كان وورسين ما له ذهل تابعي جورنال لمن كعانك في قارب وهستا كلا بدأ دوا أختي واحد كستو ما أنت إذا كينديه إنه واحد ونكسب تمر كسيد وحش كجاب دلاسي مكارد إن العاق واهستان شرف واهستان مقع واهستان هذا نوع نفتي إنه شرور راه وكوش علاقة شنفت أوتشراي الكلية هاي سيلينغاس أنا مسكوت درايو بعد إيش كان هذا فرحت عيرت أنا هنا يبقى مسكوت بفرح سوينجي صايا بدل ما قالت تنمية تتكفيرية إيه تتك ورفيري ليش هدون تقنع والله بالله طلع وحياوه كوبوين ومتقنا ولا نسلنا على هاي ولا جربنت هاي ولا رفاسنت هوا إلهي حق سنة والله فكنت صلاة ذكر الإلهي سبحان الله والحمد لله ولا إله ولا تكو قرآن كأخي دقيقة والله بقى أنكلا قاعدنا وكلا بقى أنكلا قاعدنا مد وحواي وغاشها سلف awareness ka markasta ina ogtahay ilaahay inuu ku jeedo ilaahay inuu kula socdo ku jeedo kii laba ah wuu saddexaya kii hal ah wuu labayaa ilaahay kii saddexna wuu afraya ma jirto ma laga qarsano ama qol soo xiro waxa doonto la gal waa ku jeeda ilaahay midaas labaad waa ina ogtahay ilaahay xaqiisna u laabanaysid ogtahay waa inaad caqiidada dhistaa ilaahay inuu ku jeedo xaqiisna u laabanaysid digriga labaad waa maxay waa soonka waa sakada waa salaada waa digriga asaga mid maxaa ku iri aaminaada la dhisaayo ilaahay inuu ku jeedo waa self awareness ina gudahaaga ka dhistaa loo aqrida ka dhaadhici conscious mind ka dhaadhici ilaahay ku jeeda warfiiri xal yiri 25 kun oo jeer baynu neefsanaa bay dhaheen neeftana qaadanayno ilaahay hadduu istaagaya bye bye ku dhamaatay oxygenka waa xirmay wadnaha waxaa yidhi 72 jeer buu qaraacnaa tu ilaahay istaag dhow istaag dambiya sameynaysa salaada ma tukatid ilaahay wuxuu leeyahay qaraaca wadoonkay u qaraac waa laga yaabaa inuu isu laab xumaan baa sameynaysa wadnaha u qaraac wuu awoodaa inuu isku kaa dhajiyo wuu awoodaa inuu isku kaa laabo sida laptop wuu awoodaa wadnaha inuu ku istaajiyo wuu awoodaa wax kasta inuu kugu sameeyo marka maanta time management aad iyo aad waayo xaqiiqdii waa wax inuu xagga ilaahay inuu ugu laaban ugu fiican marka dhankaaga waqtiga waxa professionalkaaga dhankaaga cibaadada balance noqodaa dhankaaga familka balance noqonaa barakada waa taqwada ilaahay marka barakada halkeen naga soo galaysa waa caqiidada in dhisayno waqtiga aynu ogaanay ilaahay inuu nasi ugu shukrino wax yoom ilaahay ugu shukr nabiga sallallahu alayhi wasallam soo kaco ilaahay ugu shukrinay alxamdulillah shukri gratitude waa walaalayaal ilaahay xaqiisa inuu laabano adduunkan kaliya inuu ceelino maaha aakhirada inuu ilaawan ya
akhiradana ilaawo tusaale yar aan idin sheegaa hadda fiir tusaale yar aan idin sheegaa aakhiro intay jirto ilaa fiir fiir wax yar aan idin sheegaa walaalahayo fiir soo qaada intaa u jeedaan intaa safarka waa safarka naga dambeeyo wallaahi alcadiim baa ku dhaartay intaa u jeedaan waxaana u jeedaan halkaa waa safarka naga dambeeyo waa aakhiro adduun waa intaa wallaahi masharaf beleda adduun waa intaa day intaa yartaa war intaa doonto noolow waxa ani maanta ma oglishin sano gaaraya doonto soo xaaladda khatarta moogta bateriga waa intaa yarta intaa waaba badiyay 90 years ka dhigo qof baa jecel inuu noolaado haye noolow bal haye boqolkaba kuu xiray war boqolkaa sano ma siisanaysaa intaa waxaasaa dambeeya boqolkaa sano tag maa ka faa'iidaysat marka boqol sano maaha anima hubi boqol sano cid ka ahaysa qaar baa 20 iyo 30 ku dhinta 40 ku dhinta meelna loo soo jiro ma ogin eeg intaa ilaahay geli waqtigiisa dantaada markaasi ku hagaagaysa dadka dhahaya salaada waxaan bilaaba markay wax isugu ka toosaan khalada ku sugantiin salaada joogtee war xaaladda ha kugu kala adkaato xaas la'aan ahow caruur la'aan ahow shaqo la'aan ahow lacag la'aan ahow it doesn't dictate inaa salaada joojisid halkee waxaa lagu arkay anigu waxa maanta ka hadla wax lacadde oo run ah been baa u moodaan waa arkaysaan caqliga shaydaanku waa sax روتين واحد سميسنسا كلها عكتا markaa heshid iskugu kaa toosto hadda maxaa samaysaa ma haysid camal معلوم inaa wax barato camal maaha معلوم inaa ilaa xaggiisa u cararto camal maaha waxaas shaydaan kaa dhadhiciyo fiir aqli xumadiisa waxaas adiga caqli ma lihid camal maahaas waxay inaad hooyada ka ducshato u kacdo u shaqayso farxadda familkaaga fiiri aroorta markaa kacay xataa they love you subax kasta irsikaaga ilaaha qabo وجوجه marka intaa yarta ha ku khamaarin intaa yarta oo ognahay goor lagu qabanayo boqolkaas sano ma 30 jir laga dhex qabanaya boqolkaas sano ma 30 jirka laga dhex qaban ma 40 jirka ma 50 jir ma 20 ma naqan you don't know حالات uncertainty وهو أنت الآن بوقت نوزك سعنا ميت سعنا مركا وقتي مركا سيدا سوكو إيمانا time management is key guys والله مركا أنا برتي absolute waxaa noqday bullet proof baa noqday caqligaan markaas aad baranaysaa ma fahamta marka sidaas waa intaa yartaa nolosha waa intaa aakhiro naga badan ولو دماد ماله وحنا دماد ماله وانكو واو وسيسو حتى دماد ماله is not ended مرخير بدن بدي رجينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته